بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وعرفنا أن كهذا النوع أنبيدي إلهي usoo diray صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين laga soo bilaabo nabiyullaahi aadam ilaa laga soo gaaro nabigeena oo khaatim الرسل ahaa صلى الله عليه وسلم ummadahoodii arinta la isku mari waayey oo la isku hayay oo aqwaamtaas iyo ambiyadooda u dhaxaysay waxay ahayd yaa iskala taacada iyo xukunka. marka dagaalka ugu weyn ama macrakada ugu weyn ama meesha la isku mari waayey waxay ahayd yaa sultada u sarreysa oo in laga tala qaato oo in wax la weydiiyo oo laga dambeeyo yaa iskale. marka qur-aanka arintaas aad u faahfaahiyey oo aad uga hadlay. marka waxaan rabnaa inaan taariikhdaas ilaahay nooga sheekeeyey oo qur-aanka ilaahay subxaana watacaala oo ku kala dhigdhigay inaan taariikhdaas aan dul marno oo bal nebi walba iyo waxa ay isku hayeen ummadiisa iyo meesha ay ka taagnayd maaragtay macrakada dhabta ah ama dagaalka dhabta ah ama ismarwaaga dhabta ah inaan maaragtay aan ka hadalno. waxaan ka bilaabaynaa marka nabiyullaahi aadam calayhi salaam. ilaahay subxaana watacaala markuu yiri u sujuud malaa'igtii loo sujuudishay oo shaydaankii uu diiday إلهي سبحانه وتعالى واتون وشيء قرآن كيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. marka aayadaas ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogu tilmaamayaa markii la yidhi ordahaya dhulka taga. ilaahay subxaana watacaala shardigiisii horena wuxuu ahaa nabiyullaahi aadam ilaahay inuu u doortay inuu khaliifo u noqdo dhulka oo ilaahay uu wakiil ka yahay oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo sharcigiisa uu ku maamulo ardada. shardigu saasuu ahaa. shardiga maxaa asaasi marka u ah? waa raacid wey, waa daaco wey. ilaahay inuu taliyo oo suldaanka isaga uu leeyahay oo xukunka isaga uu leeyahay subxaana watacaala. faman ittabaca hudaaya leh falaa yadilu walaa yashqa. marka hanuunka waa iimaankii wey. diidada oo ilaahay subxaana watacaala la diidana waa gaalnimadii iyo iimaankii oo laga hor yimaado wey. ilaahay aayaddaa ku xigta waxaa leeyahy waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma. marka sideedaba waa un labada dariiq wey. ilaahay hanuunkiisa oo la ateeco oo ah ilaahay subxaanahu watacaala in loo hogaansamo oo isaga la isu dhiibo oo laga dambeeyo oo la ateeco. ma ahan ilaahay subxaana watacaala kaliya in loo ogol yahay inuu kownka asagu maamulo, samada inuu dhulka abuuray, cirka iyo dhulka asagu inuu abuuray, makhluuqaadka ku hoos jiro dhan ilaahay subxaana watacaala inuu abuurtay. intaa kaliya in ilaahay loo rumeeyo maaha. intaa ilaahay baa loo rumaynayaa. shacaa'irtana ilaahay baa subxaana watacaala loo gudanayaa oo loo khaalis yeelayaa. sidoo kale marka ilaahay subxaana watacaala asagaa wixii tashriic ah iyo wixii lagu dhaqmayo nidaamka xayaatada iyo nolosha bini aadamka uu ku dhaqmayo ilaahay subxaana watacaala ayaa la rabaa in loo gudbiyo. marka nabiyullaahi aadam shardigii khaliifo looga dhigayba waxay ahayd ilaahay diintiisa iyo sharcigiisa iyo nidaamkiisa in dhulka uu ku maamulo oo uu yahay markaas faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa. mana hoogayo, mana dhumayo, mana halaagsamayo qofkii ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ummadii ama qoomkii ku dhaqma. qoomkii kalena waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan, nolol dhib badan oo qaxar iyo halaag ah ayuu ku noolaanayaa. aakhirana wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma. haddaan marka nabiyullaahi aadam intaa uga gudubno, nabiyullaahi nuux calayhi salaam asagana sidoo kale ayaa qoomkiisii 950 ayuu nabiyullaahi nuux calayhi salaam ummaddiisa wax u sheegayey oo intaas ilaahay subxaanahu watacaala kor iyo hoos iyo si walba iyo dhinac walba ula hadlay. marka ilaahay subxaanahu watacaala asagana waa nooga sheekeeyey. waxau yidhi
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسجنا وقضية اتباعوي معناها إلهي سبحانه وتعالى وإعاصيين أو حي راعين عدة أيجا أكر لنيسة مال كودا يا أولاد ودبا خسار أكر تنسى ومكروا مكرا كبارا يي مركا راعين أصنام أيجا أي سميستين أو أيجا أي قرتين لكن أصنام تحبط تري ميسرونتي لكن أصنام تضبع كدم بيا dad baa ku aqdaamta dad bay waxay u yihiin maaragtay meel ay ku gabadaan oo ayaga looga dambeeyo oo ayaga la raaco garatay marka wamakaru makran kubar وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا marka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa aayadaas inay raaceen oo ay sagaca inay maaragtay aaliha ayagu samaysteen oo qorteen dadkaasna waxaa la yiraahdaa magacyadaas ilaahay hadda aayada ku sheegay dad saalixiin ay ahaayeen oo ayagu markaas ka bacdi ay intay islaam ka dhigeen ay caabudeen marka kuwaasay ilaahiye ka dhigteen anigana waa caasiyeen mana i raacsana marka waxaa garanaysaa qadiyada la isku haya inay tahay yaa horta laga dambaynayaa yaa maaragtay ilaahnimo kaliya loo qirayaa oo sharcigiisa la raacayaa oo laga dambaynayaa oo asaga markaas addoonnimadii dhabta ahayd yaa iskale waxaa iskale addoonnimada dhabta ah cidda inay nolosha bini aadamka ay iyadu ka taliso oo wax u jidayso oo lagu maamulo ciddaas way cidda ilaahnimo mudan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khaasiye asaga uu leeyahay oo la rabo in looga dambeeyo marka labadaa nebi hadda aan soo sheegnaba waxaa weeye qadiyada qoomkooda isku hayeen waxaa weeye yaa la raacayaa oo laga dambaynayaa oo nidaamka xayaatada maamulaya marka xalaqada koobaad caawa intaas ayaan ku ekeysanaynaa ambiyada ilaahay ayaan meesheenii kasii wadaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullah